إنا لله وإنا إليه راجعون. maanta waxa magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaalida dalka Itoobiya ku geeriyooday siyaasi Professor Ali Khaliif Galayd. Allah u naxariistay marxuumka ayaa ku dhashay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, halkaas oo ku soo bilaabay waxbarashadiisa asaasiga ah isagoo waxbarashada dugsiga sare ka galay magaalada Sheekh. Professor Ali Khaliif Galayd waa siyaasi Soomaaliya waxaanu ra'iisul wasaare ka soo noqday dawladda Soomaaliya sanadkii 2021 isagoo sidoo kale dawladihii Soomaaliya ka soo qabtay xilalka wasaaradaha arrimaha gudaha iyo warshadaha sanadii 1982 Professor Ali Khaliif Galayd Allah u naxariistay waxa uu in muddo ka soo shaqeynayay qaybaha waxbarashada Soomaaliya isagoo macallin iyo bare ka soo ahaa maxadka Somali Institute of Public Administration (SIBA) ee maamulka dawliga lagu baran jiray halkaas oo markii dambe ka noqday agaasime. Allah u naxariistay Professor Ali Khaliif Galayd sanadkii 2000 ayuu noqday xildhibaan ka tirsan Soomaaliya iyadoo isla waqtigaasina uu noqday ra'iisul wasaarihii ugu horeeyay ee dawladda iyo madaxweynaha ka ahaa Cabdiqaasim Salaad Xasan. Professor Ali Khaliif Galayd ayaa Allah u naxariistay sanadkii 2014 loo doortay madaxweynaha maamulka Khaatumo oo ka aasaasay gobolada bariga Somaliland kadibna waxa heshiis iyo isafgarad ay wada gaareen dawladdii uu hogaaminayay madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. intaasi wixii ka dambeeyay waxa uu inta badan waqtigiisa ku qaadanayay gudaha Somaliland. Allah u naxariistay Professor Ali Khaliif Galayd ayaa maanta ay ku soo ilaa taariikhda noloshiisu magaalada Jigjiga ee caasimadda ismaamulka Soomaalida halkaas oo ku geeriyooday. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun.